أنا ما رأي بوجايري ودراسة إنجليز كسبيعي لبا كوني يشرب بقول قف بدراسة على لقوا باري وحيكون هذا حتى هردة بيد هذا حتى وحكى هردة وناكسن قف كأن رير كلاهين ده قف كرير كله أياك هردة وناكسن يعني الدراسة داسي وحيصبر بردي جيسا قف كرير كله يقف كأن رير كلاهين وحكى له يده وحلي هذا اسكبوق يردك أو بقول هذا مهرك أو اسنا بقول هذا حق الدين أنكو صالحياننا وحنو مقليدكو قادرياته إن قادرية كصوب بحضان الصالحين أنا النقطان وأيضا لهذا أنكو السلفيين باونا هاي إذا كنا عدسان باتهيني كصوب بحوه سلفية صور نقطة لمن كيف تشري وحيلا محينو يلا ميل فوق بينو كنمي من نقون كرو حولينو ودنا صدح ربواي يلا بيدهدي horta boqolkii halaad ee meher ahaa yaradka 7 halaadna waanu wadanaa awra waan rakuubana waa fuushanahay qoryana waanu sidanaa boqolkii intaasaan ku buuxinayna qaadiriyadiina saaka laga bilaabo waa ka baxana saalixiyaanuna maradaanu inanta ku helaynadii inanta hadaba meherka la inanta nagu lehe inanta noodis waa yahay buuro inantii buu dhisayo dabadeetana subaxii dambe u yimaadeen waxay ku dhaanaan laba xaalaan ku nidhi hadaba kow horta gurigaaga annagoo lugaynana maanaan iman ee annagoo wax fuushan baanu nimi annagoo lugaynana ka noqon mayno talabaad markaa 7 habeen bay aroos ahaayeenoo inantii gabadhoodii bay noqotay warwar ma qabaan talabaad bay dhaadaan 7 habeen ayaanu ku jiray saalixiyadiinii waxba ka garan weynay qaadiradeedii baan ku noqon ترى وحيد ورياء العاقلك وأورتي أي نمكن يفوشنا ركوبة ده هاي وصوصار ركوبة ده والله صوصار هل كم يكتاجين ولا ده إك إن أنت اللي سويتي سنة يا إلا وحي قاعدين طريقة ده ساتي إنك صوبها أو تايا ده صوقلا سيدا جوركم معنا أولها أي حبلو معنا أولها هاي قولي هسشري وكويري marka geedka loo baxo wada hadasho guurtidu gacan qaadku uu dhaco laga keeno guunyada gobsana hablaha iyagu walagu heesay guurku saasuu Soomaalida u ahaa kaalin muhiim ah ayuu kaga jiray markaynu Soomaalida iyo dhaqankii inta kaga nimaadno de islaamkana waa ogtiin halku kaga jiro waxaaba ilaahay ku sheegay aayaadka iyo dhacdooyinka ilaahay lagu garanayo inuu guurku ka mid yahay إلهي محيي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة علامات كواوين أما الدليل ذا واوين إلهي لقو قرطوه حاكم إذا بالي مركزها هدنا إلهي محيي لتسكنوا إليها حسلات بالله الشيء سلا يسوق حسشان مركزها لمانين اللي بشارة يولا يدي وجعل بينكم مودة ورحمة دحدين إلهي وحو يالي مودة ورحمة كالقعل ينحرس علمي بودرين هالكا وحو كيريسنا عاشق هوين وهراء عادل سورو جاي سيدكي عرشق فولي علي بس سو غاري waxa cayn ba cayn looga dhigay hays cajabiyeene Soomaalida caada xuna iguma caydeen waa isna cilmi boodari horta guurku maraaxilkaas uu leeyahay oo ka taagan yahay nolosheena iyo dhaqankeena iyo diinteennaba kaalmahaas uu ku leeyahay buugan baa yimi inkasta oo xilli dhaweyd lay dhiibay oo aan waqti dheer aanan hayn laakiin dhowr qormo oo aad wanaagsan baan ka akhriyay waxaan ka akhriyay oo de anigu buug waa balaaran yahay oo de qofka aan guursanaa dhinac buu ka eegaya anigu dhinacii guursaday baan oo dhinacayga baan ka yar eeg dhinacayga baan ka eegayo daraasad la sameeyay ayaan eegay xagga caafimaadka muxuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay wadna xanuunka iyo faaliga iyo kansalka intaba waxa halis u ah qofka aan reerka lahayn hada anigu maan oran
anigu maan odhan buuggaa yidhi waa daraasad ingiriisku sameeyey 2500 qof baa daraasaddaa lagu baadhay waxay ku ogaadeen xataa hurdada bay yidhahdeen xataa waxa ka hurdo wanaagsan qofka aan reerka lahayn dee qofka reerka leh ayaa ka hurdo wanaagsan yacni daraasaddaasi waxay isbarbar dhigaysaa qofka reerka leh iyo qofka aan reerka lahayn waxaa kala yidhaahdeen waxa la yidhaahdo isku buuqa wuxuu ku badan yahay qofka aan reerka lahayn xagga xasiloonida iyo deganaanta waxa ku badan qofka reerka leh halkaa waxay iska waafaqayaan aayaddii imika aan akhriyayay litaskunuu ilayha baa ilaahayna yidhi xasilooni baa ilaahayna sheegay iyaguna xasiloonidii bay imika eg nimanka reer galbeedka wax baadha 1400 sano ka hor wuxuu ilaahay inoo sheegay ayay marba ku soo dhacayaan oo baadhaya waxay yidhaahdeen xasiloonidana qofka reerka leh ayaa ka xasilooni badan qofka aan reerka lahayn qofkii aan reerka lahayn xanuun buu haya oo hurdaxum buu haya oo isku buuq buu haya laakiin reerkii bay laba ka dhigeen laba halkaasi ay idin dhuubanin reerka labaa laga dhigay reerka iskhilaafsani kuma jira arrintan reerka khilaafka iyo muranka iyo cadhada habeenkii ku seexdaa kuma jira xasiloonida waa reerka kalgacalka iyo farxadda ku seexda ee aayaddii aynu sheegaynay iyagana mawaddatan wa raxma waa reerka aayaddaa ku seexda ee iyagoo qoslaya seexda ee iyagoo faraxsan seexda ee iyagoo habeenkuba ay sarkaan say u sheekaysanayaan iyadoo 3dii habeennimo ama 4tii garaacayso allahu akbar waxaan ku soo gabagabaynayaa hadal badan baan qaataye buugga markii aan dhigay pagekayga facebooka dad badan baa ka jawaabay qoraagana ereygaa waa u sheegayaa nin koonfur afrika joogaa soo jawaabay kaftan iyo taluu isku daray wuxuu idhi buugga koonfur afrika ha la keeno waayo buu idhi doobabkaa ku badan intaana qoraagaan u sheegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu